بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 486 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم واقنوهم. قلت للحكم: مقنوهم؟ قال: علموهم. رواه ابن ماجه والحديث حسن. إخوة الإسلام والإيمان، maanta taariikhda islaamka ay tahay saddexdii bishii sideedaad shacbaan sanadka 1442 isla markaana waafaqsan 16 bishii saddexaad sanadka 2021. waxaanu ku jiray mawduuceeni muhiimka ah ee ku saabsanaa fadlu lcilmi sharci wa ahmiyatuhu lilfardi walmujtamac. cilmiga sharciga ah fadliga iyo wanaagga iyo qiimaha uu leeyahay shaksiga iyo mujtamac oo dhan uu leeyahay. waxaanu soo maray qodobo dhowra ayaanu ka soo tirinay ilaa aanu soo gaadhnay marka qodobkii lixaad ilaa 6 baan soo qaadanay. qodobka u dambeeyey wuxuu ahaa alcilmu miiraathu alanbiyaa, cilmigu waa dhaxalka ambiyada. maanta waxaan ciwaan ka dhigaynaa dalabu lcilmi wasiyatun min wasaaya annabiyi calayhi salaatu wassalaam. cilmiga sharciga dalabkiisa iyo raadintiisa waa dardaaranka nabiga weeye. idan nabiga dardaarankiisa inaanu qaadano shay aad iyo aad madlab sharci u ah weeye. inta markaan ka gudba xadiidka maaragtay marjiciisa oo loo celiyo ama meeshu xadiidku ka yimi caswigiisa iyo masaadirta xadiidka soo saartay. xadiidka waxaa soo saaray alimaam ibnu maaja kitaabkiisa sunanka iyo keyrkiiba, waana xadiid xasana xadiidku, waxaana xasan ka dhigay sheekh albani, wuxuu ku xasaniyey sunan ibnu maaja raqamka xadiidka 247 sunan ibnu maaja 247, sidoo kale silsila saxiixa 280. labada marjicba xasan buu xadiidka ku xukumhaya, leanno sanadkiisa nin ku jira ayaa mutakalamu fiiha. saa darteed xadiidku waa xadiid xasana wey. intaa markaan ka gudbo macnaha xadiidka abu saciid alkhudri radia allahu tacaala canhu wa ardaah radia allahu canhuma, isagii aabihiiba labadu laba saxaabi ahaayeene wuxuu leeyahay rasuulka wuxuu yidhi sayaatiikum. waa mucjizaadka nabiga calayhi salaatu wasalaam qaybo ka mida wey. qolo aana weli u imanin iyo dadaan u imanin buu kasii hadlahayaa. wuxuu leeyahay sayaatiikum, waxaa idiin iman doona aqwaamun, qolo ayaa idiin iman doonta, yadlubuuna, haddaad saxaaba tihiin, yadlubuuna dalbahayaan alcilma, cilmiga dalbahayaan. arday dalabatulcilmi ayaa idiin iman doona haddaad saxaabatu rasuulillahi aad tihiin. fa idaa ra'aytumuuhu, markaad aragtaan dadka dalabatulcilmiga ah, faquluu lahum, u dhaha marxaban marxaban biwasiyati rasuulillahi sala allahu calayh wasalam. marxaban marxaban tafsiirkeedu waxaa weeye nazaltum, waxaad degteen makaanan raxban waasican, makaan aad iyo aad waasic u ah oo weyn baad soo degteen. biwasiyati rasuulillahi, ku soo dhowaada biwasiyati rasuulillahi sala allahu calayh wasalam, nabiga dardaarankiisa. markaasuu nabig wuxuu yihi waqnuuhum. raawi ku jiray sanadka oo la yidhaahdo maxamed ibnu alxaarith ibnu rashid almasri oo maaragtay ibnu maaja sheekhiisii ah, ayaa weydiiyey asna sheekhiisa alxakam ibnu cabda ayuu weydiiye. wuxuu yidhi qultu lilxakam, waxaan u idhi maqnuuhum maxay tahy, maa macnaa uqnuuhum? qaala wuxuu yidhi callimuuhum bara weeye, callimuuhum bara, cilmigay soo raadsadeen bara weeyaan. ikhwat alislaam waliimaan, xadiidkan xadiid cadiima weeye. wuxuu aad iyo aad u tashjiicinhayaa oo u ibraasinhayaa dalabulcilmiga iyo fadliga uu leeyahay iyo dalabatulcilmiga wanaagooda iyo qiimahooda in la sharfo. limaadaa loo sharfahayaa? waa lifadli madluubihim wa sharafihi. waxay raadinhayaan fadliga uu leeyahay oo cilmiga sharciga ah iyo sharaftiisa ayaga lagu sharfahayaa. sharafta cilmiga iyo fadliga cilmiga uu leeyahay sababkiisa lagu sharfahayaa. marka nabigu wuxuu yidhi waxaa idiin iman doona haddaad saxaabatihiin, qolaa idiin iman doonta. taabiciintii iyo muslimiintii dambe wey dalbahayaan cilmiga sharciga dalbahayaan. mowqifka laga raba dadkaas iyo qaabka la raba in loola dhaqmo maxay tahay? wuxuu nabigu yidhi haddaad aragtaan dadka noocaasa ku dhaha marxaban marxaban biwasiyati rasuulillahi sala allahu alayh wasalam.
soo dhowaada wey nazaltum waa degteen weeye makaanan raxban waasica makaan waasica oo weyn ayaa timaadeen marka weheshi baad hesheen marka cidlanimaha dareemina soo dhowaada weeye macnaheeduna ay tahay karaameeya weeye akrimu man awsaa bihim الnabiy sala allahu alayh wasalam dadka uu nabigu dardaarmay in la karaameeya weye oo hagaajiya karaameyntooda waxaa ka mid a marka waqnuuhum bara waxay rabeen iyo cilmigay rabeen marka bara wey idan waa wasiyadii nabiga calayh salaatu wasalaam ku soo dhowaada laleeyahay soo dhoweyn fiican baa idiin sugnaatay makaan fiican ku soo dhowaada wasiyadii nabiga iyo dardaaranka nabiga ku soo dhowaada waqnuuhum bara min xusni istiqbaalihim waxaa ka mid a istiqbaalkooda la hagaajiyo maaragtay inay wax la baro cilmiga soo raadsadeen la baro halka waxaanu ka qaadanaynaa fadliga uu cilmigu leeyahay dalabatulcilmiga waxay sharaf ku yeesheen oo saa loogu ikraamahayaa cilmigay dalbahayaan fadligiisa iyo sharafta uu leeyahay iyo qiimaha uu leeyahay ba ayaguna qiimo ku yeesheen yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat bu ilahi subxaanahu wa tacala culimmada halkaa 2 jeer baa lagu ammaanay mar waa ahluliimaan oo dadka muminiinta ahluliimaan weeyaan oo muminiintii gelhayaan yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum ilaahay kor buu kar yeelay oo kor buu u qaaday kuwa ahluliimaanka waladiina uutuu lcilma waa alla subxaanahu wa tacaala yarfac illaahu aladiina aamanuu waladiina uutuu lcilma minkum iyo kuwa ilaahay cilmiga uu siiye 2 jeer bay marka halkaa ku ammaanan yihiin idan halkan marka dalabatulcilmiga ayaa aad iyo aad liiha loo karamay ixtiraamkooda soo dhoweynta kaalmayntooda waxay u baahan yihiin oo maarata loo dhammaystiro wahaakada limaada lianna waxaan ay dalbahayaan baa miiraathu lambiyaa wey wasiyada nabiga uu dardaarmay weeye dadkaa dalabatulcilmiga in la karaameeyo in la soo dhoweeyo lianna cilmigii bay rabaan inay xumbaaraan wax kastoo cilmigaa u sahlayana in lagu kaalmeeyo hadday degan noqoto hadday kitaab noqoto hadday culimmadii wax u akrinaysa noqoto haddii maarata gid wax allaale waxay u baahnaayeen in lagu garab istaago ayay mudan yihin asagoo la ixtiraamahayo wasiyada nabiga maarata iyo dardaaranka nabigu u bixiyey iyo waxaanay dalbahayaan oo cilmigii fadliga badnaa ee sharafta lahaa ee qiimaha lahaa uya ilahina subxaanahu wa tacala waxaan weydiisanaynaa biasmaa alxusna wa sifaati alculaa inuu naga dhigo kuwa cilmiga sharfa kuwa ehelkiisa sharfa maca alasaf shadiid soomaali haddaan nahay dhexdeenna cilmiga soomaali dhexdeeda cilmigu qiimo kuma leh hataa maadigaana qiimo ku lahayn maxaa yeelay inuusan qiimo ku lahayn hataa maadiga waxaa kugu daliila ninkii wax soo bartay ilaa phd ilaa intaa dictoore soo diyaariyey oo maadi soo bartay markuu dhulkii iyo damco inuu shaqo ka qabto odayga garhka cas ee familkooda ayaa kahayn halkaas meesha la rabay inuu shahaadiisa wax ku raadsado odayga kaaba qabiilkoodaa kahaynaya kaasaa markaa shaqadii la raadinaya marka waa nin garasha weeye ee cilmigu uu bartay kuma meel marhayo hadduu jago rabo hadduu shaqo rabo waa inii la kaxeeyaa oo cid kale uu ku daba dhuntaa wey cilmigiisa markaa qiimo ma yeelanayo marka halka waxay kutusinaysaa inayna cilmiga qiimo aynu u yeelin culimmadii kale islaam sharciga ahaana iska badaaba cilmigii diinigaana warkiiba joojiba cilmigii diinigaha waxaad ku daliilood ku garanaysaa cilmiga diiniga caalamka kale waxaad ka helaysaa culimo la tafriiqiyey oo la kafaalo qaaday oo la dacmiyo oo dadka tujarada ay dacmiyaan oo meel la fadhiisinayo oo laleeyahay marka idinku dadka waxbara rag waxaad arkaysaa ardadii wax baranaysa kitaabkii la barahayo o dhan intay soo gadaan ay ku qaybinayaan ayaan dhaweyd baan waxaan fiirinayay ninka sheekha caalimka ah ee masriga mustafa alcadawi xalaqa uu lahaa kitaab wuxuu akrinayay lagu dul akrinayay maaragtay aad u qiimo badan aliqnaac bimasaa'il ijmac la yihahdo oo uu leeyahay ibnu maarata abulxasan ibnu qataan waa kitaab intaasoo mujallada hal nin oo dadkii tujarada ee magaalada uu deganaa kamid ahaabaa ardadii cadadkay doonaan ha ahaadeen ayuu intuu soo gaday buu yidhi ardada ha loo qaybiyo yani sheekhu markii uu hadlay wuxuu yidhi 100 iyo samti nuskuu keenay 160 nuska muu yidhi oo kitaabkii halkii xaba wuxuu ka kooban yahay 5 mujallad 6 mujallad mase 4 mujallad wey yuu ka kooban yahay ardadii oo dhan baa lagu simay wixii uu gaari waayey haddana mar labaad baa loo soo gaday maktabadii buu ka dhammaaday ali kitaabka innaguba waxaasaan leenahay ma lihin
idan dalabatulcilmiga kaalmahooda iyo gargaarkooda wixii kitaab u baahan yihiin wixii hoy u baahan yihiin culimadii naftirkeeda in la maaragtay sakan la dejiyo la tafriiqiyo cilmigooda say dadka ugu faafiyaan saa darteed baa mujtamacu uu hagaagi lahaa marka laakiin arrintaas nasal allah alcafwa walcaafiya aad iyo aad marka arrintayan inagu ugu dambaynaa sayatiikum waxaa idiin iman doona aqwaaman qola idiin iman doonta yadlubuuna dalbahayaan alcilma cilmiga sharciga dalbahayaan faidaa ra'aytumuuhu markaad aragtaan faquluu lahum u dhaha marxaban marxaban biwasiyati rasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam nazaltum makaanan raxban waasican raxbigu waa waasic wey meel weyn baad timaadeen yani biwasiyati ku soo dhowaada biwasiyati rasuulillaahi sala allahu alayhi wasalam dardaaranka nabiga waqnuuhum saa ku dhaha weeyaan waqnuuhum bara qultu lilxakam waxaan u idhi maqnuuhum maxay tahay macnaheeda qaala wuxuu yidhi callimuuhum bara weeye sharciga islaamka iyo waxay idinka rabeen diinta islaamka bara weeye ilaahay subxaanahu wa tacala waxaan weydiisanaynaa maarata biasmaa alxusna wa sifaati alculaa inuu xaqa na tusa nugu nirsaaqa xaqa raacitaankiisa nagana dhigo kuwa cilmiga iyo ehelkiisa iyo dalabadiisa iyo culimmadaba ixtiraama maarata garab istaaga allaale waxay u baahan yihin hil iyo hooba ku garab istaaga inuu ilahi subxaanahu wa tacaala naga dhigo hal mar baan xadiidka lafdigiisa ayaan maaragtay akrinaya alxadiiثu 485 can abi saciid اlkhudriy radi allahu canhuma can rasuuli اllahi salى allahu alayh wasalam qaal sayatiikum aqwaamu yطlubuuna alcilma faida ra'aytumuuhum faquluu lahum marxaban marxaban biwasiyati rasuuli اllahi salى allahu alayh wasalam waqnuuhum qultu lilxakam maqnuuhum qaala callimuuhum rawaahu ibnu maajah walxadiiثu xasan hada wsala allahu calى nabiyina muxamadi wعalى alihi wasaxbihi ajmaciin wasalaamu calaykum waraxmat اllahi wabarakaatu